waxaa jiro dad badan oo aanan haysanin meel saan weyn oo kale ama laga yaabo guryahayna ku alameeteynayaan aysan awoodin gurigii ina macnaha dabagaab in soo xirato gabadhii inay wiilasha hortooda ku boboodo laga yaabo qolkoo kale inuu xerig la geli karin ku dhufanaysa alaabaha qaar oo guriga dhexda okay tip ayaan ku siinayaa xerigan aad uga maarmi kartid xerigan muhiimaddu waxaa waa reactionkii keliya ayaa samaynaysa muhiimaddu waxaa waa inaad boodid qasab keliya maaha xerig keliya inaad ku boodid tusaalahaan oo kale qofkii xerig wata camal aa iska dhigaysaa reaction kale samaynaysa almost boodaysa muhiimaddu boodkaas leba adiga xeriga maaha qasab inaa marba gacanta ku haysid waa dadka waan haysan waqtiga gym joogin ama xeriga aan haysanin hadday haystaan xataa meel ku use garaan oo gurigi macnaha oo PC ya alaab badan dhex taalo oo xerig markaa turto xaleeyo inuu TV ku dhago inuu meel ku dhaco kuwaas oo kale reaction-ka bis ay sameeyaan boqol rep tartiib boqolka waa easy okay taas markaa aad samaysid waxaa ku daraysaa intaadan bilaabin calooshii ina exercise-ka samaysid waxaa ku daraysaa kansaan laabtiin ajirka waynu gacmaha soo taabto taasoo kalena aad buu ina caawinaya marka maanta waxaan rabaa inaan sameeyo hadduu ilaahay idmo caloosha qaabab kala duwan oo caloosha waa full qaybta hoose qaybta sare geesaha intaba in insha Allah sameeyo mid walba oo aan sameeyayna waxaan ka sameyn doonaa qayb walbaba 30 jeer ayaan sameeyayna total waxa la yaabaa inay ka qaato 6 minute ilaa 5 minute waxba kaama dhibayso laakiin 6 minute 5 minute ina samaysid jimki calooshii aad waqti gelisid haddana markaa saas u sii dhamaysid inaad hore macnaha ka bilaawdo cuntooyinkii culaysiina sababta caloosha waa sidii buufin oo kale buufin inta hawo ku shubtid ayuu diiqaya ama la ekaanaya hawo ahaan calooshuna sidoo kale haddaa cunto badan ku shubtidna way diiqaysaa haddii cunto yar ku shubtidna cuntada haddii taa cunto fitamiinaa isla markaas dheefshiidka shiidaa uu fudud yahay isla markaas jirkii wada galaya adoo dhargareen oona baahnayn marka waxaan insha Allah waxaan rajeynayaa inaan sameyn doono calooshi qaabo badan fidi hana isku soo dhaweyn hana kala fogeyn saas ka dhig normal saas ka dhig insha Allah kadibna waxaan sameynaa insha Allah marba aad sameynaysid oo hawada gadaal sii qaado marka kor isku qaadaysid hawada tuf ضرب كيلو ما دي كرو لكن صدق جنا هذا اسكو دي لغها كور قاضي كان اساس ده مركب امي صدق سو ميسان لي هذا وعدك تا الى صدق جرس ميسي المصاصه ده هنا بس اوكي في ذا لقطه في هورو في سؤالي هورو في سؤال اوكي كذا صدق رب إلى سميسيد ميتول بقى سمينيسيد وصدق صدق ما إلى سميسيد أنت ميدك أما بيح ميدا مركز سمينيسيد أنت كواي كده نسأسو أبجري 1 2 3 4 5 6 7
qaybta kore waxaan ku celinaa hadda qaybtan kale hadday waxaan u use gareynay saan ay u qabsanay hadda waxaa la sameynayaa kan gudaha la gelinaya gacanta okay la soco asagana 30 mar soo taabanaysa waa in gacmaha mar walba saarin si kugu fudan dadka xasmaa ee sameeyna may markaas tamaysid muruqu inuu meesha soo laabta kan kala atraada mabaa way kii oo diyaar u ah muruqi hadaad samaysid daa waxa ma ka faa'iideyso muruq markaas tiraadid oo soo celis meesha soo celiskan kale wuxuu reed u yahay inuu asagana diyaar u yahay inuu sameeyo qaybta kale ko labo saddex iloobin kan inaa mar walba samaysid muhiim ayuu ku yahay haddaad xirigan aadan ku use gareyn karin gurigaada hataa xiriga iska dhaaf reactionkii samay ma fahamtay waxaa leeyahay dadka inay dhahaan anaga ma samayn karno 100 ilaa 200 wax badan aad samayn kartaa waa laakiin naftaada ka soo go'daa haddii naftaada ay ka soo go'in waxaa ma samayn kartid aniga haddii naftayda ka soo go'i lahayn tareen ma imaan lahayn laakiin anigoo dooqayga noqon aan naftayda ka soo go'a that's why aan u imaanaa jimka إنك waxaan talaan ku siinaa inaa biyaha badsateen normal dadka cunto badan ay soo cunayaan way soo dharjinayaan waxa la biyo badan inay use gareeyeen biyaha muhiim ay u yahay biyaha badsada si jirkiina oo dhaqmo sababtay marka for example oo kale qofka markuu biyo badan caaw waxa u fududaana in xataa jirkiisa wasaqda ay ka dhaqmato dufanka waa wasaq jirkaada ku jiro hadaad exercise samaysid biyo badan aad cabtid cuntooyinka cunayso cuntooyinka waxa ku jiro inta fat ku jirto inta calorie oo yahay inta protein akilis aad qiyaastid absolutely